بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، xildhibaanada golaha shacabka ee sharafta leh, dhammaan shaqaalaha baarlamaanka, waxaan filayaa in ajandaha la qaybiyey. ajandadeena maanta markaa fiirisiin wuxuu ka kooban yahay furitaanka aayadaha qur-aanka kariimka, ansixinta ajandaha iyo qaybinta warbixinta aqrinta labaad ee hinsharceedka hay-adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka. bismi illahi raxmaan raxiim. xildhibaanada sharafta leh waa mahadsantihiin. xogeyntu ma la qeybi sharciga? xildhibaan kasta waa haystaa soo maaha? sida xeerasaadkeeda uu qabo qodobka 86 maanta waxaan sameynaynaa oo keliya qaybin. warbixinta guddigana waxaa ku qoran laba columna waxaa iska lahaa wasaaradda amniga gudaha, waa aqrinta koowaad. columka kalena aqrinta labaad waxaa soo diyaariyey guddiga arrimaha gudaha, maamulada iyo gobollada iyo amniga. columka saddexaadna waa faallo. markaa fiirisid sharciga qaabkay guddiga u diyaariyeen, si heersare u diyaariyeen. marka maanta muhiimadda waxaa waaye qaybintan warbixinta guddiga ay soo diyaariyeen aqrinta labaad inay xildhibaanada qaataan muddo 3 maalin ah, ay fikradoodii afkaartoodii soo akhriyaan, soo calaamadeystaan. xildhibaan kasta meesha uu rabo inuu ka hadlo ama wax ka bedelo. marka xildhibaanada waxaan sida xirshadka u qabo aan siinaynaa 3 maalmood oo maanta ka bilaabanaysa. xildhibaano ajandadeena maanta intaasuu ahaa, qaybin uu ahaa. qodobkii xeersaadkana waa ku dhaqmeynaa, waana haysanaa. dastuurkeena waa ku dhaqmeynaa. aadaa u baahsantihiin. shirka intaanan xirin xabdheerahaan siinaynaa oo waxyar warbixinna sii doono, kadibna shirkeena waa xiran doonaa. bismillahi raxmaan raxiim. mudane guddoomiye iyo xubnaha sharafta leh, waan idin salaamaya. maalin wanaagsan. waxaa keliya rabay inaan u istaago markii matalaadda iyo waajibaadka aan ka hadlayno ee dhinaca midigta xildhibaan xaggaas waxoogaa sawaxana ka jira. marka waajibaadka shaqayna saaran waxaynu ognahay inay yihiin waajibaad aasaasi u ah jiritaanka dowladnimadeena iyo waxa aynu ka shaqaynayno inay isleeyihiin. marka way mahadsan yihiin culimmada hadda inoo timid. marka maanta waxaan rabay inaan idin xasuusiyo hal ajenda yar oo dheeri inagu ah. ajenda ma aha aragtiyan aniga rabay inaan idinla wadaago. ugu muhiimsan waxay tahay, waxaan ognahay 23 ilaa 26 inuu jiray shirkii culimmada Soomaaliya oo si aad u qurux badan loo soo agaasimay. mahadinka gaadho wasaaraddii shaqada watay iyo madaxweynahaba. waxaad ogtihiin shirkaas ajendayaasha looga hadlay inay wax badan laga taabanayeen oo ay ugu horeyso midda la dagaalanka argagixisada, maadaama fikirkaasi uu midaynhayey sida ay dagaalkooda ku soo saareen culimmada Soomaaliyeed oo dhan. intii suuragal ahayd ee ka timid shirka inay ku midaysan yihiin in hal ajenda ah in lala dagaalamo khawaarijta iyo daacish iyo argagixisada. inaguna ay waajib nagu tahay fikradii ay ku heshiiyeen dhaqangelinteeda, maadaama ay tahay in haddii xeerar loo baahan yahay iyo haddii ka gungaadhis loo baahan yahayba inaynu gacan ka geysano. midda kaleetan islah waa muhim in qofka mas-uulka ama xildhibaankii oo aragtidaas bogaadiyo, akhriyada bayaanka soo baxay oo runtii si qodo dheer looga hadlay dhibaatada soo dhacday ilaa 1975 ilaa waqtigan oo 48 sano ah, inay culimmadu irdho ka qabtay dhinaca dowladnimada culimmadii la laayay kadib. marka wixii intaa ka dambeeyey maadaama kalsooni abuurmayso
in kalsoonida abuurmaysa golaha shacabka oo kamida dadka matalaada shacabka ee runtaa inay intani tahay dadka shacabka Soomaaliyeed la soo arooriyay waxaa dhaqangelintiisa iyo qayb ka noqoshadiisa iyo ka daaraandegidiisa inaynu qayb ka nahay inaynu isku ogaano bogaadinana dhiirigelinana dadkii yimid saan ognahay in dadka culimada ay public soo istaagaan cabsi iyo ka warwareegasha ku jirto laakiin maadaama hadda banaanka taagan yihiin annaguna dadkeena hadlaya ama dadkeena aragtiyaha gudbinaya inaan ugu darno dhiirigelin waxa ay qabteen inuu yahay wax aan ku garab siinayno darafna aan ka nahay wax kasta oo qayb aan ka ahayn xasiloonida iyo dhismaha nidaamka dowladnimada wadaagga iyo wada noolaanshaha ay Soomaaliya u taagan tahay marka fikir ahaan inaynu boorino qaybna ka noqono tilmaanana in waxaas ah wax wanaaga oo culimada Soomaaliyeed isugu yimaadaan si ay dhiirigelin ugu noqoto taas ayaa rabay in la wadaaga aad iyo aad baad ugu mahadsantiin waana fikir kaydoo kaliya aad baad ugu mahadsantiin kulankeennii 13aad ee maanta oo ujeedadiisa ahayd qaybinta warbixinta aqrinta labaad ee hinsharciyeedkan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xildhibaanada waa hasitiin xildhibaanada waxaa laga rabaa inay si fiican ugu soo baaran degaan isbuucan ajandayaasheena waa noo badan yihiin shuruuc kale noo imaan doonto shirkeena maanta waa noo xiran yahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.